xanjadu waxay wanaagsan tahay intay adag tahay, waxa ay macaan tahay intay afka ku jirto, waxa ay xumaataa intay afka ku raagto. haddii aad muddo badan xajo cunaysid waxa dhacaysa inaad madax xanuun ka qaadid, calooshuna ay dareento baahi. waxa jirta waxa la yiraahdaa dhawaansho iyo fogaansho. haddii aad waxyaabaha qaar markii la rabay inaad ku dhawaatid ka fogaanaysid, waxyaalihii rabana inaad ka fogaatid aad ku dhawaanaysid, waxa imaanaysa meeshaas inuu qalqalka soo galo. Mudo وصاحبك شاهد بيساني بدنا كاله الله سدح شيء نولش عافماتك إحريرك برنامج كان كل وذاك دون فيديوغان وحكو سلسلة هاي مت ديرجلين يمت كسلسلة بحرير كبا حتى بو حد على مرة كقار تضرب نقول له وذاك يصير أما مروه هو أما مدنه هو أما قف حرير هاي ذكر حياه وحتى عيسى إن قف كاسي أتسيسيت إن كبدن أنتو أقل مي ساسو إيتهانا وحات كلا كل مسادباتوين أدو ترى بدن هذا هو حنكو حزين يا هالك ماشي وحك قلدين وحا إيتهان وحا حاكر اللي راد دوانشو يفوقانشو markay u baahan tahay inaad qof u dhawaatid wayna u dhawaataa markay u baahan tahay qofkaas inaad ka fogaatina wayna ka fogaataa fogaanshahanu ma aha mid keenaya dhibaato dhawaanshahanina ma aha mid dhibaato keenaya ee waa sida aad adigu u maareysid waqtigaaga mararka qaar waxa dhacaysa qofkani inuusan diyaar u ahayn inuu markaasi muujiyo wax wanaaga ama diyaar uusan u ahayn in markaasi aad kala kulantid sida aad ratay haddii sida aad ratay markaana aad kala kulmaynin مرة waxaa jirtay aad kala kulmi jirtay waa inaad adigu marka ismashquulisaa oo isku mashquulisaa wax markaasi hobbigaaga ah qofku mar walba sida aad ratay kama helaysid haddii aad baratid dhawaanshaha iyo fogaanshaha waxa ku sahlanaanaysa qof walba markaasi xiriir iyo nolol ka dhaxaysa inaad isfahantaan sidaynu ognahay haddii maanta aad xanjo afkaaga gelisid xanjadaasi aad maanta dhan cunaysid marka dambe waa ku daalaysaa labada dhafoor ayaa ku xanuunaya haddii maanta dhan qof markaasi noloshiida ka dhaxeeya kaliya aad ka fikiraysid marka dambe waxaad ka qaadaysaa madax xanuun iyo xanaaq iyo in waxa uu qofkaasi sameynayaba aad u fiirsatid sidoo kalena waa dareentaa mararka qaar qof aad jeceshahay ama qof waxa ka dhaxeeya inaad calool hur dareemaysid waa sida xanjada haddaad maanta dhan xanjo cunaysid gaajo ayaa ku qabanayso haddii aad maanta dhan qofka ka fikiraysid oo waxyaabaha qaar aad adigu isku mashquulinaynin hobbi aad samaysanaynin waxa dhacaysa in calooshu ay ku hurto oo aad qofkii ka fikirtid dhibaatana meeshaasi aad adigu sababtid haddaba si aad isku fahantaan qofkaani nolosha iskugu fahantaan waxa ku sahlaysa inaad adigu hobbi samaysid haddii aad marwo tahay oo caruur ay ku joogaan inta aad qofka markaasi nolosheeda ka dhaxaysa aad ku mashquul lahayd waxa wanaagsan in caruurtaada ku mashquulshid aad u soo gadid waxyaabaha lagu ciyaaro waqtina aad isla qaadataan halkaasina waxay ka helayaan caruurta jacayl waalidnimo marka ay soo weynaadaan ama soo qaangaaraan waxay noqonayaan kuwa ku noolaado xasuusta yaroontooda aad soo siisay inta badan aad hobbi samaysatid haddii wax akhris noqon lahayd haddii sports noqon lahayd iyo haddii noqon lahayd caruur ku joogto aad ku mashquul lahayd waa inta badan ay ka dhigayso culeys tiro badan ama aad ku mashquul lahayd qofka marka waxa idinka dhaxeeyo inta haddii qofka xiriir kaliya idinka dhaxeeyo mararka qaar inta aad ku mashquul lahayd ama aad ka fikiri lahayd ama aad iska dhigi lahayd qof aad u jecel meeshaasi waxa ku lumaysa xushmadii qofka uu ku hayay maanta dhan qofkaani hadaa maskaxda ku haysid waa sida adoo maanta dhan xanjar ruugayay mararka qaar waa inaad barataa waxyaabo aad isku mashquuli kartid xitaa qofkaasi hadaa kala boodaan oo aad kala tagtaan waxa ku sahlanaanaysa in waxyaabaha aad ku mashquuli jirtay hore aad ugu sii mashquulshid oo meel cidla aad ku soo dhicin qalbi jabna aad dareemin inta badan waqtigaaga hal meel aad saartid oo inta badan dhibaatadu ay kugu sii badanayso kuna sahlanaanayso inaad la kulantid wax marka adigu culeys ku saara ama qalbigaagu uu huro ama maskaxdaadu way aad u shaqeyso bara sida hobbi loo yeesho wax marka adigu farxad gelinaya aad ku mashquuli kartid xilliga ayagu ay mashquulsan yihiin haddii adiga oo waxyaabaha qaaska ah ku mashquulsan haday firaaqo helaan waa inaad dareensiin kartaa inaad mashquulsan tahay ayagoon xumaato ku arkeynin laakiin haddaad hobbiga u sameynaysid inaad qof ku dhibaataysid mar walba waxaad ahaanaysaa qof dhibaato la nool mararka qaar waa inaad qofka jaanis sii kartaa oo aad ku sii kartaa inaad isku fahantaan nolosha waxyaabaha nolosha la isku fahmayna waxa kamid ah inaad mar uun meel ka soo wada jeesataan laakiin haddii mar walba tartan isku jiro oo aad ku fikirayso qofkaani markuu ku xumeeyo aadna xumay waxa dhacaysa in meeshaasi ay ku lunto riyadaada ha u raadin qofka in markaasi qofkaani aad dooqaagu u yahay waxa u raadaysaa qofkaani inuu riyadaadi yahay waxyaabaha qofkaani dooqa aad ku raacaysa haddii hanti noqonaysa iyo haddii qurux noqonaysa waxyaabahaas oo dhan waa isbedelayaan laakiin waxa aan isbedelina waxa ay tahay riyadaada mar walba dooqaagu hadduu yahay sida riyadaadu ay tahay riyadaadu waa mid mar walba taagan oo aad isleedahay dhamaystir ilaa noloshu ay iska bedesho laakiin haddii dooqaagu uu yahay kaliya muuqaalka iyo hantida iyo wax markaas qofka ka muuqda waxaasi sanado kadib way isbedelayaan sida aad rabtayna mana ahaa doonaan mar walba xoogga waxa saartaa haday shaqo noqonayso iyo haday waxbarasho noqonayso iyo haday xiriir noqonaysaba inaad ku dabaqdid riyo kamid ah riyooyinkaaga waxa guusha keena waa riyada ee ma keento wax markaasi adi dooq ama rabitaan gooni ah kugu jiro wax walba marka rabitaan gooni ah kugu jiro
waqti kooban ayay ahaanayaan wayna isbedel mararka qaar waxyaabaha aad sameynaysid ha u sameeyay in lagu abaalgudo ee waxaad u sameeysaa in adigu qof abuuran aad tahay oo wax wanaaga aad sameey kartid adoon sugaynin in lagu soo jawaab celiyo ama wanaag lagu sameeyo halkaas markii aad iska tiirisid waxa dhacaysa inaad dareeminbo qof walbo aad wanaajisid in wanaagaagu uu sii kordhiyo kadibna ay kugu soo falceli doonaan si ka wanaagsan laakiin marka aad rajo ka sugayso qofka aad wanaajisay inuu dib ku wanaajiyo mar walba waxa dhacaysa in hal hadal uu ku yiraahdo ama hal hadal ay ku dhahaan inaad adigu qalad u fahantid ama aad dib u xasuusitid wanaagaagi haddii aad marba xasuusinaysid wanaaga sameynaysid ama mar walba niyada ku heynaysid inaad qofkan wanaajinaysid aad dib wax uga helaysid waxaad ahaanaysaa qof qabyo ku nool wax walba aad sameynaysid waxa u sameeysaa inay ahaato wax adiga ka soo go'ay laakiin haddii aad waxaan aad sameynaysid ay niyadaadu ku weyn tahay qofkan waxa laga yaabaa aad wanaag u sameynaysid inaysan u muuqan waxyaabo kale u muuqato si uu ku wanaaji lahaa laakiin haddii wanaagaaga yiriiska uu ku muuqdo aad qofkii kula xanaaqdo wixii kale oo weyna uu sameey lahaa waxa laga yaabaa inaad meesha qalqal gelisid adigu marka aad wax sameynaysid waxa laga yaabaa wax ka weyn in lagu sameeyo wanaagaaga yuusu ku xisaabsanaanin hadaa wax wanaajinaysin waxa aad wax u wanaajisaa inaad waxba suganin waayo hadaad markaas aad u wanaajinayso wax inaad waxba suganaysid wixii baa ka fikiraysa wixii markaa ka fikirtin madax xanuun baa ka qaadaysa ama calool hur